السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شريف حسن aad iyo aad uu mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka madasha waa mahadsan yahay warqadda waad aragteen madasha ka soo baxday madaxweyne Shariif Xasan hadda waa ka dhawaajiyay oo qodob aad iyo aad muhiim u ah oo aasaas saldhig u ah qodobada warqadda ay ku soo baxday kamid ah ayuu ka hadlay annaga madasha xisbiyada qaran sida oo hadda loo tilmaamay dhowr mar oo uu sheegnaba waxaan u taaganahay waxay tahay wixii dayacaad ah ama ku takrifal dawladnimadii ah inaan talana ka siino dawladda oo dhan war waxa wadadii saxdeed maaha shacabka Soomaaliyeedna inaan u sheegno waxa qaldan dalkan wuxuu waa dal federaal ah wuxuu ku heshiiyay dastuur waa run dastuurkeena waa qabyo waxba ka dhiman laakiin waxba ku soo muxuu qabyo ku yahay wixii dhiman uu qabyo ka yahay laakiin waxba qodobo lagu soo qoray dastuurka oo qoran oo asaasi ah oo la soo ansixiyay oo dawladdu inay ku shaqeyso oo ah inta badan dastuurku waa qoran yahay qodobo yar yar way jiraan hadii asigoo qabyo ahay intii qabyada ka eedna laga sii tago oo lagu dhaqmi waayo annaga madaxweyne maxamed Shariif Xasan hadda xukuumadda hadda joogtay xaaladeedu ka hadlay laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed in xusuustooda dib u celiyo madaxweyne Farmaajo maalintuu yimid ilaa maanta maalin uu dastuurku dhaqmay ma jirto maalin walba gudoomiye Jawaari ridiisi ka soo bilaaw weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku geey rididii u dambeysay hadda maxaa ra'iisul wasaaraha geey judiciary systemka waxa ka dhex jiro oo garsooradii inta la eeriyo ku cusub la keenaa ka dhig dhinac walba madaxweynuhu waa barbar marsan yahay waa hareer marsan yahay dastuurka uma rogmanin maalin inuu iska dhaafo in dastuurkii la qabyo tiro oo la dhammaystiro intii joogtay madaxweynuhu inuu ku dhaqmalaya xukuumad dhacday oo baarlamaankii golihii shacabka ee dastuurka u baneeyay oo kalsoonidii kala noqday oo si cad oo qeexan ugu taalo in dalka muddadaas konton iyo intaas oo maalmood laba bilood ku dhawaad in dalka xukuumad la'aan iska ahaado waa qodob dhibaato weyn oo maanta dalka haysata waay dhibaato kale ma aha waliba waa dastuurkii oo waxaan macno lahayn laga soo qaaday oo la tixgelin waa qodob waxa la yiraahdaa dastuurku kuma qorna maalmaha madaxweynaha asaas laakiin curfi siyaasadeeda soo jira 1960kii dalkan ugu xorriyad qaatay ilaa maanta hadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre markuu ka tagay xafiiska intii u dhaxaysay ra'iisul wasaare madaxweyne 30 maalmood ka badan haystay ra'iisul wasaare sooma marin ra'iisul wasaare inta la magacaabo isaguna 30 maalmood ka badan xukuumad inuu ku soo dhiso soo marin ma jirin waxaasi ilaalmay mudayihiin 60 sano la soo ilaalinayay maanta hadii lagu gudbay wax badan kama duwan ayadoo dastuurka lagu gudbay oo kale waxaa Soomaaliyada maantana waxaas la isla fahmay oo war wixii cusub oo mushkilaadka hadda taagan in laga heshiiyo oo heshiis looga gudbay ahayde kuwii hore heshiiska loogu ahay in laga tirso 4.5 waa aragnay dastuurka kuma qorna laakiin haddana heshiis dadaeed lagama gudbo hayo ra'iisul wasaaraha magacaabistiisa 30 maalmood ixtiraamkeedana waa sidaas oo kale meel looga gudbi kara ma laha madaxweynuhu wuxuu sameeynayo dastuurka sax kuma ah dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan rabaa بكل الاحترام أنا مدحونا احترام وهايون أفلقادين أفلقادنا أنا إجاهين إجانا السوروبن وحبك كم بدونا مدحونا وسميناه نين جبر أي كلا تجان ولي الموضوع ليس وحبك كم بدونا حاسكي أي كلا تجان أو فري أسوي ولي حاس أطهايو كلاواي حكومة دمانت جرتها واساس شرع معها وشرع الدر دستورك وحاكو عط رئيس الوزراء ku-xigeenkiisa ama ku-xigeenadiisa xataa hadda hal ku-xigeenaa bijirba macquul maaha dastuurka meel uu ka tilmaamayo male xukuumaddii dhacday ayaan qaar intay soo celiyaan waa ku meel gaar aan leeh markaasaan haddana 2 bilood aan iska sii daynaya markaasaa haddana xukuumadda 30 maalmood oo madaxweynaha la siiyey xukuumadda waxaa loogu talay routine administrationkii dawladnimada ee socday inuuna kala go'in oo sii socdo loogu talagalay inay meesha sii joogto laakiin looguma talagelin qawaaniin cusub inay dejiso guddiyo dastuuri oo cusub inay magacaawdo inay meel walba ka baxdo guddiyadaasoo dastuuri waay guddiga adeega garsoorka iyo guddiga waxaasoo dhan sida ay ku imaanayaan iyo sida loo dhisaayo guddiyada xataa sida ay ku imaanayaan dastuurkay ku caddahay xeer kale xataa maaha dastuurkaa tilmaamayo guddiga adeega garsoorka 1 2 3 saan ku imaana qof xaggay ka imaanay 2 xaggay ka imaanay 3 qofood xaggay ka imaanay waa tilmaaman tahay hal qof oo meeshu ka imaanahay laga imaadsiin ma jiro laga keenay ma jirto 5 qofood waay dadka la keenay lahay 4 qofoodna waa 4 qofood mi 3 joogto hala ayada xataa ka maqan
waay hadda guddiyo kala baarlamaan waa waxa naloo sheegay weliba waxaan annaga haynaa xog dhehayso shuruuc badan iyo guddiyo badanaa golaha wasiirada hadda mugay dhaceen ka bacdi ay ansixiyeen la leeyahay war meesha falaad waaye dowladnimo kama socoto dowladnimo waa qaanuun waa dastuur waa curfi la ilaaliyo oo maxaanku idhahdaa dhaqan oo la dhowro waayo dowladnimadu ma aha caawada intaan seexdaan waxaan rabaa iska samaynaa madaxweynuhu meeshaas ha ka yimaado dalkana yaanu dhaqan cusub oon jiraynin horan u soo jirin yaanu waa odagii maanta waxay taagan tahay madaxweynaha baarlamaankii asigaa rafaadka dhex yaal dhigay labadii aqal inaanay isku imaanayn shaqaday wada lahaayeen aanay wada qabanayn wixii ka dhexay aanay ka dhexaynin xeer dalkaanu ka dhaqangalaa la leeyahay oo siduu ku soo marin aan soo maraynin madaxweynaha asaa raalli ka ah agtiisay yaallaan xeerarkii labada aqale golaha mid ka mida uu soo gudbiya agtiisa dhooban oon kii kale loo geynin marka madaxweynaha baarlamaanka asaa kala haayo xukuumaddii meeshuu ka saaray dadka soomaaliyeed waxaan rabaa ha ogaadaana caawa la joogaay dowladnimada waa maxamed cabdulaahi farmaajo keligiis xukuumadii ma jirto baarlamaankiina waa disabled waa kala jiraa macnaha baarlamaanka inuuna jirin maa labadii aqal waa jiraan laakiin sharciyan wixii inay qabtaan iyo siday inay u shaqeeyaan ay ahayd uma shaqeeyaan umana qabtaan waana cilad uu madaxweynaha muxuu ahay uu ka mas'uul yahay asagaa la rabay inuu isku soo qalqaaliyo isu keeno celiyo kii xoogaa xadgudba yac yiraahdo kan kale odagii inuu meesha ka odaday madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka afka qalaad waxa custodian waa qaadimka dastuurka waay yaa ku qoran dastuurkay ku qoran tahay meeshii inuu saas asiga u adeego oo dastuurka horumariyo oo horumaryaha waa ilaaliyaha la dhahay in maanta iska barbar maro oo cid dad kale markii haddee guri waxaa la yidhi haddii habarta iyo odaga reerka haddii ay gurbaan tumaan dabcan carruurtan maxay samaynayaan guriga joogtahay waa inay ayagana daansa cayaaraan madaxweynaha hadduu dastuurka asiga ilaalinaya dadka ka soo haro dhan maxay u ilaalinayaan waaba eegayaan be waaba geedku sidaanaaba madaxweynaha ninkii dhammaan ummadda ay doortay madaxweynaha waxaan leenahay meesa ka yimaado waxaan rabaa maanta dalkeenna iyo duruufaha uu ku sugan yahay waxay ahayd shaqo kasta oo la haayo maanta waxaa priority ama kow u ah oo hortabin u leh waa doorashooyinka doorasha dalkan siday uga dhici lahayd oo si nabada uga dhici lahayd oo mid lagu qanacsan yahay oo waxa ka soo baxay dadka ay raalli ka yihiin ay u noqon lahayd maanta hay-adaha dawladoo dhan waxay ahayd waxa inay ku mashquulaan ahayd waa taas madaxweynuhu maalina dadku wuxuu ku madadaali jiray qof iyo cod doorasho aan qabanaynaa qof iyo cod doorasho aan qabanaynaa war fiican waay waana waxa ummaddaanay u baahan tahay waana wixii ugu fiicnaayo muxuu ahay ay dowladnimadeenna maanta ay kusii tallaabsaneen laakiin shaqay u baahan tahay waxay u baahan tahay in oo la soo bilaabo oo maxaanku idhahdaa laga soo shaqeeyo oo maxaanku idhahdaa wixii oo waxaas ay ku dhaqaaqi lahaayeen iyo waddadaas baabuurku waddadii u mari lahay in la sii dhisay u baahneed waxba lagama qaban 9 maalmood ayadoo wakhtigii doorashada ay ka dhiman tahay ayaa madaxweynuhu afkiisa doorasho horta ka soo baxday sidiisaba afkiisa doorasho waxay ka soo baxday 9 maalmood ayagoo doorashada ay ka dhiman tahay ha ka soo baxda weliba waxa waa meel uma socoto weliba war wixii waa naga khaldameen waa ka soo daahnay sibay wax naga noqdeen war haya see u qabanaa maxaan yeelnaa hadday tahay oo laysla qaadayo waa la waxay kari lahay weli intuu ku haystaa madaxweynaha maalinta doorashada ay bilaabanaysa lama yaqaano maanta waa 15 Sebtembar soo ma 15 Oktoobar ayaa doorashadu bilaabatay 2016 ayadoo dib u dhacsan weliba xildhibaanka 329 xildhibaankii ugu horreeyey Oktoobar 15keedii la doortay 15 Oktoobar maanta waa 15 Sebtembar maxaa naga xiga 30 maalmood meeshaasaana joognaa doorasho ma dhacayso goormay dhacee noocee waaye yaa maamulaayo saayii waxay yihiin lama yaqaano weli taas waxay daliil u tahay inaana doorasho inaan la soo wadin waxaan rabaa madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada maanta shirayo madasha xisbiyada qaran waxay ugu baaqaysaa doorashada wakhtigeedana cayima maamulkeedana cayima nooceedana cayima doorasho toos ah oo qof iyo cod ah iyo doorasho dadban wax u dhaxeeya annaga ma naqaano
doorasho dagaamaysan iyo doorasho saana iyo doorasho inta laga dhacayo haddii laga yimid hal qof iyo hal cod bas stoobka ku xigoo la istaagi karaayo waa doorasho dadban waay waana afkaa laga dhowrayaa in doorasho dadban la yidhaa lama ogola wixii waa la waxaynayaa magacyo kalaa loo bixbixinaa ummadii waxaas ma dhaqaan dadkani waxaa layidhi maxaa la akhyaar horteeda caanaheeda laga barxaaye wixii ficnaa haddaan gaari wayne wixii ficnaa saasay ahayd waa gaari wayne saanaan gaaraynaa oo weliba waxay ahayd in oo mar hore lasoo yidhaahday ahayd maanta in la garan waayo 30 maalmood oo maalintii ay doorashada in dhacda ahayd ay ka dhiman tahay in la garan waayo su'aalahaasi weli taageen nasiib darro waay waxaan rabnaa marka inaan ku darno wariga walwalka annaga aan qabno madasha haddaan nahay nimanka akhyaarta ee madaxda ah ee labada lakab ee dowladda ee shirayo markaan gadaal u fiirino waddadii la soo maray waxa ay hadda waa ku heshiin ay dhihi doonaan xataa ma dhaqan galayaana annaga naga dhaadhacsan ummadda Soomaaliyeedna waa u taagan tahay waa joogtaa dalkan kororsiima laga rabaa afkana waa laga dhowrayaa war annaga kororsiima loo baahan yahay waxaan ma qaban karno in la yiraahdo waa laga xishoonayaa wax kasta oo doorashada waqtigeedii aan ku dhacaynin ogaada waa kororsiimo dad badani waxay meelaha qaarkood ay nimankan saaxiibadeen weliba dowladda yaraada madaxweyne xasan sheekh waa geedis waa kortay annaga horta doorasho 2012 aakhirkeeda nala doortay 2013 aan horta doorashada shaqadeeda bilown 4 sano annagoo doorashada ka shaqaynaynay yaa haddana waqtigeeda aan gaari weyne laakiin dadka doorashada inaanay waqtigeeda ku dhici karin goormaan u sheegnay 2015 horaanteedii annaa 2 sano noo dhiman mana ka gaari karno waa officially markaan sheegnay laakiin shacabka Soomaaliyeed ee dawlad goboleedyada jira ee deegaanada jira ee diasporada ah shirki ay halkan ku yeesheen way sheegeen doorashada markii la qoray doorasho qof iyo cod si u dhacdo waxa loo baahan yahay 2016 lama gaari karay dhaheen hiigsiga 2016 sheekadiisa meesha ka soo bilaabatay ahayd aniga waxaa la doortay oo doorashadu soo gabagabowday bishii September 10keedii 2012 September 10keedii October 15keediina doorashadan bilownay October 15keediina doorashadan bilownay 25 maalmood u dhaxaysay maalintii madaxweynaha mandatekiisu dhacay oo dhamaaday iyo maalinta doorasho la qabtay waa qodob 15 October ilaa 27 December madaxweynaha iyo xukuumadaba tala gacan uguma jirin gudiyadii doorashada dawlad goboleedyadii wixii yahay heshiiskii lagu heshiiyay waxay ahayd dawlad goboleedyada doorashada markay soo dhamaatay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada inay soo saxiixaan madaxweyne saaxiibka Sharaf Xasan waa joogaa waan rajaynayaa inuu marqaati kaco in badan oo kamid ah dawlad goboleedyada agtooda ku soo daaday doorashada markay dhamaatay ka bacdi xataa liisaskii in la soo gudbiyo dadkii la isku keeno kaarkii loo sameeyo maalintaas uu dambaysanaa la dhaariyo tala aan annagu leenahay annagu tala haddan madaxweynuhuna waa sida tala wuxuu leeyahay maalinta doorashada bilaabanayso doorashada hadday bilaabato ka bacdi wax tala asigu u yaal ma laha wax tala u yaal ma laha maalinta ay doorashada bilaabanaysa inta ka horeysa tala u taala inuu maalinta doorashada nimankaas ay xadidaan ay cadeeyaan nooca doorashada waqtigeeda waxa laga rabaa Soomaaliduna ay ku qanacdo war biiri khalfiyaad ama sooyaal oo aan wax badan la ballan qaaday aan laga run sheegin oo wax badan la dhinac maraya gadaal noo yaalo marka annaga waa nagu wada qofilan tahay waxaan ma la dhaqan gali doonaa mise lama dhaqan gali doono waa nagu wada taagan tahay doorashadu waqtiga ay bilaabanaysa ayaa madaxweynuhu oo tala ku leeyahay xukuma maalintaas go'aan ha ka soo gaaro ha ogoleysiyo ha ku qanciyo nimanka hadda talada la laho meesha la fadhiyo mid la aqbali karo annaguna aan ku qanci karna ha ahaato dadka Soomaaliyeed ee qaar ogaada doorashada haday naga qaloocato laba cawaaqib oo aad iyo aad u dhib badan ka imaana xumaan inay ka timaado isdil ka yimaado waa macquul doorashooyinka sida lagu yaqaan adduunyada dhan hadii dil ka yimaado dhig ku daatana waxa soo baxaya in la aqbali waaya ka imaanay oo qaybo badan oo bulshada kamid ah ama ku dhiigaas ka dhaxdhacay ama kuwa kale ay yiraahdaan
waxa meeshaas ka soo baxay xaaraan waaye wax la aqbali kara ma aha in laga ilaaliyo oo laga badbaadiyo u baahan tahay annaga wax badan oo doorashada ka mid ah madaxweynuhu inuu ku far adeego ku dhaga xaq uma laha waxna ma ku hagaagayaan weliba markuu madaxweynuhu uu murashaxayo inuu soo tartama rabo kuma sii jirtaba inuu cararay ahayd saan anaga naloo eriyey jiray berigii iskool booliisiyaha lagu qabtaa lagu yeeshay maya laguma qaban karo maxaa jira taliyaha booliiska beri yiri muxuu ahay madaxweynaha muxuu ahay soo noqonaa beri yiri sidaas daraaddeed maba yeelayn institutionka booliiska haye baarlamaanka waa qaadaa muxuu ahay 329 xildhibaan waa qaadaaye aan ku qaban maya baarlamaanka la iskuma aamini karo kan waa inta waa lama imaan karo lama yeeli karo haye inta rabtiin meeshaasaa la geynaa bal geynaa ha la geeyo codsigaas wuxuu qoran madaxweyne farmaajo ku jira waa ku jiray dadkii oo asiga oo dhahay lama aamini karo meel madaxweynuhu ka taliya ma rabno meel uu askartiisa joogto ma rabno meel ay kan ma rabto dadkii dhahay madaxweyne farmaajo koobka ay ugu horreeyay marka annagu hadda meeshaas ma baanaan isla gaarine annagu doorashada inay dhacdo guryaha Soomaalida ay leeyihiin baarlamaanka federaalka dhexdiisa aqalka sare hadii la geey karo dhexdiisa hadii la waayo iskool booliisiya dhexdeeda meelaha inay ka dhacdo doorashada waxba ma ka qabno midda madaxweynaha midda kalena deegaanada ay leedahay waxa kale oo aan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo mid kale oo ka digayn ayadana 329 xildhibaan ee baarlamaanka imaan doonto inay kala kategori noqdaan kuwii saan loo soo doortay iyo kuwii saan loo soo doortay inaanay kala noqonin kuwana aan la dhihin 500 600 kuna soo dooratay kuwana aan la dhihin 20 qof oo soo dooratay aan la dhihin aqalka sare baarlamaanada dawlad goboleedyada soo doortaana la yiri president yani hordhac uu leeyahay tii hore sida ahayd tan waa la aqbali karaa laakiin golaha shacabka xildhibaanadiisa 275 xaalina muxuu ahay 20 qof 30 qof 50 qof 100 qof soo dooratay caashana muxuu ahay 2,000 qof soo dooratay 1,000 qof soo dooratay acceptable ma wax la aqbalo uniformity waa muhiim waa meesha cadaaladda ugu dhow cadaaladda laga arkayo in dadku bato waa fiican yahay laakiin intee la gaari karaa haddana ma tabar aan guurnaa mase taako iskuma hubna tabar aan guurno waxaan leeyahay nimankaas odayaasha madaxda ah tabar ha la guuro maanta ilaa maalmaha doorashada xilligeedii ka dhiman nooca doorashada ee la qaban karo ha la qabto qurux dhalanteeda oo waxba ka jirin yaan lagu riyoonin oo birina salka ku wadato waa la qabo wallahi 3 bilood kale aan u baahanahay ma bil kale aan ku sii darno ma xagga kale haddana aan ka dhacno iyo ma yeelin inta la yiraa biri la isku imaa waayo ama wadamada qaarkood meesha ka dhacday wadamada federaalka qaarkood waxa hadda ka taagan oo ka dhacay dawlad goboleedka qaarkood inay doorashada iska qabsadaan warkooda kuma jirin nimanka xamar jooga intay yiraahdaan inay doorashadooda iska qabsadaan bay dhaadaan baarlamaanka Soomaalida maanta ee baarlamaan soo doortaa noo soo sheegto annaga kaayna waa kana waa soo dooranay waa noo joogaay inaanay dhicin haddana qataraha iyo dhibka iyo hantaaqada dhici karta in inta laga fikiro laga gaashaanto oo aan ummad aan dalka aan loo hoosaasin